anagu waxaan nahay odayaal ganacsato ah anagu odayga u weynay meesha jooga dadka reer waqooyiga ah ee ganacsatada baan ahay waxaan ka ganacsanaa magaalada Garowe waxaan ka soo jeednaa magaalada Hargeysa aniga ninkan aan isku dhinac fadhinaaba Hargeysa aan ku dhalanay abahaye ku dhashay awoyaasha ku dhashay reer Hargeysa salaam nahay halkana waan ka ganacsanaa waxaana aan maanta doonaynaa inaan jaaniskan uga faa'iideysano ninka Faysal Cali Waraabe awal dadku buu caay jiray maalin ba reer buu ku rarnaa maalin ba gobol buu ku rarnaa maalin ba qof buu ku rarnaa hadda waxa la yiraahdaa alam tarana soo dhaafiyo hadda dadkii buu isku diraya in loo jawaabo waxa keenay dadkii buu isku diraya ummadii walaalaha Soomaaliyeed buu doonayay inuu dab isugu dhiibo dad dhalinyaro ah oo shabaab ah oo wax baranaya oo mutacallimiina oo Soomaaliya oo dhan wada anfici lahaa ayuu ninkaasi farta ku fiiqay ninkii aqoon gaabka ahaa iyo ninkii mangaabka ahaa ayaan waxba kala garanahay ayuu farta ugu fiiqay arinta dadka reer Boorame si wanaagsan bay uga jawaabeen jaamacaddu si wanaagsan bay uga jawaabtay anana waa ka jawaabeynaa dadka reer Somaliland ka soo jeeda ee degan gobolada Puntland hadii aanu nahay waxa weeyaan dadku waa dad walaala meel la kuma kala maqna dadka ugu faraha badan ee baasaboorka Garowe ka qaata waxay ka yimaadaan magaalada Hargeysa iyo Burco nin kasta oo Garowe yimidna anana waa ka marakacayna isna waa ka marakacaya sida wanaagsan ee walaalnimada leh ee loo soo dhaweeyo ee loo qaabilo ee loogu shaqeeyo waxaan ka marakacayna iyaga idaawan doonaana ay ka marakici doonaan oo nin igu beenin doona aanu jirin in loogu shaqeeyo sida dadka deegaanka u dhashay Garowe ku dhashay si ka wanaagsan oo ka sharaf badan oo ka gobonimo badan in loogu shaqeeyo si aan loogu shaqeyn dadka reer Garowe ayaa loogu shaqeeyaa qof waliba fikrad dii uu awal haystay oo Hargeysa kala yimid fikrad ka duwan buu kala noqdaa markuu Garowe ka tago anagu ganacsataanu nahay bakhaaraan ku leenahay halkan waanu ka shaqaysanaa meesha ugu faraha badan ee aanu alaabta u doonanaa waa magaalada Hargeysa dadka reer Hargeysa waxay ka marakacayaan gobolada ugu macaashka badan ee lacag uga timaada in gobolada reer Puntland yihiin waxa weeyaan waa ka marag ninka kasto idaawanaya Hargeysa bakhaar ku haysta ama China ama Hindiya alaab ka keena suuqa koobaad ee ay haystaan waa dadka reer Puntland weeyaan dadku waa walaalo meel kuma kala go'aya waxa weeyaan ninka boosaaso jooga isagoo ninka Hargeysa jooga aan aqoon isu lahayn buu lacagtiisa u dirtaa ka gaalkacyo jooga lacagtiisa u dirtaa looga soo adeega kuwa Hargeysa bakhaarada ku haysta iyagoo aan aqoon u lahayn bay u soo raraan alaab aan lacag ba ka haynin dadku saasa walaalnimadoodu tahay iyagoo aan aqoon isu lahayn in macaamilada inta leeg iyo mu'aaminada inta leeg ay dhex marto waxa weeyaan Faysal nin war haya maaha haduu og yahay dadka Soomaaliyeed xiriirka ka dhaxeeya sida uu hadlay Faysalna waxaan leenahay awal dadku baad caay jirtay maanta gobol walba waa lagaaga jawaabay ninka nabadoon yaasiin ee gaalkacay ka jawaabay si wanaagsan oo sharaf leh oo odaynimo oo karaamo leh buu hadlay adiga hadalkaaga iyo hadalka nabadoon yaasiin hadii la isbarbar dhigo inta cirka iyo dhulka isu jiraan midna Soomaalinimo ka dhadhamaysa midna wax alaala wax lagu sifeeyay nin waaliyo nin yar qabla garan maayo Faysal siyaasadda wad ku saaqaday waxaan ku leenahay ninkii isqarin lahaa baa tahay nin maanta afka reer Somaliland iyo afka reer Hargeysa ku hadlimati dadka reer awdalla waxaan leenahay si gobonimo leh oo sharaf laba u hadashay dad wax magan gelin kara oo wax marti gelin kara baatiin Faysal waa nin iska hadlay dadku ma kala go'ayaan waa walaalo halkan aanu joognaa boosaasa la jooga qardhaa la jooga gaalkacaya la jooga baayac mushtari baa lagu haystaa macallimiin baa laga iyo ardayda wax la baraa waxa hudheelaa lagu haystaa geerashiya lagu haystaa ganacsi heer kasta oo yahay dadka reer Somaliland boosaasiye Garowe gaalkacyo way ku haystaan hadaad Faysal u haysato inuu isaaq Hargeysa wada joogo meel walba dadku waa wada jooga fariintan ku soo direynaa waxay tahay nin war haya matid ugu warkayagaasna dadka reer Somaliland wax galka ay wax garadka ay aqoon-yahanka ay nabadoonka ay madax dhaqameedka waxaanu leenahay war Faysal wuxuu wada sidii Soomaaliya isugu baabi'i lahayd Faysal iyo inta la noocay la fikrad ahba diida arrinkooda Faysal waxaanu leenahay arrinkaagu alam tarana soo dhaaf buu yahay war cidii u xigta Faysal qabashadiisa lahaydow umada Faysal ka qabto boqortooyo ahaydan isaaqoo dhan u taliya niman Faysal qaban kari waaye ma tiidin Faysal dadka ka qabto walaal hadalada xarafta leh dadku waa dad walaalaha oo dad wada dhashay anigu aan ku soo jeeda dhalinyarta Hargeysa ama waqooyi ee ku ganacsada Puntland ama Garowe ha noqoto waxa wanaag aan ahayn iyo sharaf iyo ciise aan kuma noolin dad wanaagsan weeyaan siyaasiyiinta sidoo isku haya
waxaan leenahay waar dadka isku dirina dantiina iyo danta dadku waa kala gaar nin walba siyaasadiisa iyo dantiisa buu ka dhaxay siyaasadda ayuu ka dhaxarkay muraayadaha anigu waxaan leeyahay dad ganacsatada baan nahay dad siyaasad ku jira manihiin dadku meel walba waa jooga Hargeysa la jooga Garowe la jooga dadku waa dad walaalaha waa la isku safraya war halada xanafta leh tayaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee meel walba wada joogtay yaan u kala fogeyn ninka Faysal Cali Waraabe waxaan leenahay tani weynna waa siyaasiyiinta ku fashilmada adigu waxa gaadheelkay talagu xuri laamba dadka laga qaban la ninkaas hadal xunna ma daayo waxu tarana ma naarago marka waxaan leenahay ummadda isku dirin waa dad walaalaha dadka walaalaha isku dhexnool baanahay soo dhaweyn iyo wanaag waxaan hayn meesha aanu kuma hayno waliba si wanaagsan baan noo jecel yahay war meel walba ummaddu way joogtay hadalka waxaan leenahay reer gelin baan ku bixinaa ayaa apologize war waxaan leenahay dadka walaalaha baanahay walaalahayga baanahay shanta Soomaaliyeed baanahay cidii ciis bay isku xiga war waxaan leenahay xadaafiirta inta leeg ma wanaagsana